qofka bini aadamka waa inuu noqdaa goolkiisa kama dambaystaay ilaahay siduu u raalli gelin lahayo jannada intan leeg siduu u heli lahaa hadduu your goals dhammaantood ahdaaftaadoo dham ay ku soo koobmaan guri yaroo ballaadhan oo aad sariir u kaga seexan doonto gawaadhi tiro badan oo aad mid u ka fuuli doonto iyo lacag tiro badanoo ku mashquulisa uun nin nimanka waxaysta Soomaaliyeed ka mid ah ee subax u soo galo cadhaysan dabeetana nin raggii ku dhadhawaa baan ku idhi odaygan maalintaan maadaama waa cadhaysanya maxaa ku dhacay wuxuu igu yidhi subax walba waxaa loo yimaadaa waxaa loo sheegaa kambani ballaadhan buu leeyahay kambanigiisa wixii ka lumaya problems jira subaxii lagula soo kala habeeyo subaxii markuu xafiiska yimaado report baa la siiyaa meel heblaaya intaasaa luntay qoladii xaggaasi waxoogaagaas way la dhunteen kuwa waxaasa ka dhacday halkaa mushkilada looma sheega buu yidhi subaxii markuu soo galo saaka 400 kun baynu faa'iidnay cidi kuma tiraahda buu yidhi laakiin negativeska loo soo ururiya markaa subax walba uu cadhaysay maxaad ka faa'iiday markaa hantida kuu biirtay haddaad subax walba cadhow ka qaadayso iyo mushkilad jirta maxay kugu kordhisay ilaahay wuxuu ina yidhi wa amaa man khaafa maqaama rabbihi ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى قفك مقياس كسوين وكالنوضة ننكا نفتي سكر يا بابا الليلي عن الهوى يعني ضبط النفس نفط وين تكنتروشها وين تكنتروشها معنى دوا محي مثل أمثلة بسيطة عنا ذا هداد ودكور شوشين ويدا ومركي علوشو ديركتات رابي تايسر اسبانو باهني سياد انتي ادعوني جرتين كبدان ادعونتو biniaadamku awal in buu cuni jiray intaasaa ku fillay waxay damceen in ka badan inay cunaan si uu in ka badan u cuno ayaa loo fakaro waxa la dhahaa appetizers baa laga horraysiiyaa marka birima intaad cunnada weyn cunin appetizers cun shahiyada kuu sii furtaa si aad u hunguri weynaato markaad dibirtaaba haddana la leeyahay may hadda waxaad u baahantahay digestionka inaad dedejiso wax daaca kaa keeno hore oo kuu maxaad marka hore isu tabirinaysa ما أدمرك هوري معناه وحوي شهوة البطن بعد إن أضوح عنطابات قستي كدكتي يدات كومفورتابل يدات مدوح الغرة عايشتو سيدا أوجد بوحي نوطي إن مرنا اللور رادية وح كل قصية مرنا اللور رادية وح محي هذا شيء هدونا الغداء وحدو بعنت سادو عاف مادة إن أردو أو بود أو إنت نصا مركا إن أضوح عنطا هدات كنترولي ويدا وحي كانتي نولا شادرنا إن يدبكو نوط dad control weydo sadaradeed nafta bini aadamka waxana waa wasaa'il ay noogu talagalay inay nolosha ku fidoonsano walidaalka mar haday nooca yihiin waxaynu u baahannahay koowaad waa dabdi nafs waa inaynu controli karno nafta inaad adigu hanato waad controli karto maxaad cunaysaa maxaad fuulaysaa maxaad dhaqanaysaa xaggaad u socotaa waa inaad waxaad garataa noqoto saawgeed baa ilaahay wuxuu leeyahay war aakhira kuwa liibaanay wa amaa man khaafa maqaama rabbi ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حديث ابن حبان صار الشيخ الألباني الصحيح قلت الماما يوحولي وريالا ميدين كورماه مؤمنك هذا هذا ومن أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم بنبوي وكيدتك النفي حول بكو آمين كران مسلم كميدين شيغا وقفك أي كرنبات قلان دتكو عرب كيسيق عنتيس رسول النبي يقول مجاهد كما يدين شيئا ومن جاهد نفسه في طاعة الله وقفك نفتيس كل الضرر إلهي طاعة ديس مهاجر كما يدين شيئا أبو النبي يقول ومن هجر عن الخطايا والذنوب وقفك إذا وحي يردن وحي الله صاكوبي قف بنا آدم ما نولشي سسيدو كنترول له وإيمانك سي واحد لقو سفيه إن إدتك كو آمنك رقف أمانة لينو نقون كره وإسلام نمديسي waxa lagu sifeeyay qof dadku ka nabad gali kara inuu noqon karo wajahaadkiisi waxa lagu sifeeyay qof naftiisa la dagaalami karo xadeyn kara inuu noqdo oo hijradiisi waxa lagu sifeeyay inuu noqdo maxay qof dunuubtiya waxa kale ka fogaada idan waxaan leenahay koow waa adduunka inaynu qiimihiisa garanno waa maxay noo nool intaynu meeshan joogayna aan u baahanahay haddaad nafta iska sii dayso adduunkoo dhan bay u baahantahay kuma deeqayo
haddaad se si riyaliya u xisaabtanto waxaad cuntiyo waxaad cabtayo meela degtaad u baahantay daadso wax ka badan waa uun inaad magac ka raadiso hebel waa bilyaneer in lagu yidhaha ama waa milyaneer ama lacag buu haystaa in lagu yidhaahdo waa magac ka raadinteeda badani mararka qaarkood dadku wuxuu isugu sheekeeyaa hadday mae bataan waxan baan qaban lahaa hortaa jiraba laga waa markaa unbay lexjecladu kugu sii badanaysa imika waxaad wada leedihin may anu haddaan xoolo heli lahaa kan baan samayn waxaas waa ammaanida dadka lagama fujiyo marka ay soo gasho waayo kama gedisnin inta haysata ee waa markaad faramarantay bay ammaanida tani ayaad is leedahay malaa kan iyo kan baad samayn lahayd laakiin markay ku soo gasho in yar uunoo ilaahay xoreeyo mooyaane wuxuumaad ku biiri doontaa kuwa kan ururinaya inuu la yidhahdo hebel waa bilyaneer ama waa milyaneer ama waa taajir weynun yani magac ka raadiya dadku hadday yihiin dadaanay maadadu qiimo agtooda ku lahayna magacaana maad hesheen dee mujtamaca kugu xeeran baa wuxuu u badan yahay inuu waxa kan wax weyn u arkayo kaasi waa kow qaybtiisa labaad waxa weeyaan inteeda xalaasha in lagu tamatuco oo ilaahay wuxuu yidhi shahwatul farjigaasi oo kale waankixu layaama minkum baa layidhi wasaalixiina min cibaadikum wa imaa'ikum kuwiina aan guur haysanin u guuriya waxaa la yidhi kuwii waaye ee uun duruufaadku ay ku yara adkaadaana walyastacfif waa aayadda ku xigta walyastacfif aladiina laa yajiduuna nikaaxan xataa yugniyahum allahu min fadli arrinku arrin weyn maaha ciddaanay markaa u suurtogelinna ha dhowrsanaata baa la yidhi suuqa ha gasha lama odhanin waxaa la yidhi ciddaanay markaa u suurtogelinna sidan baa saxda ah ha dhowrsanaato shayga labaad aynu tilmaamayna waxa weeyaan shahwaatu nafsi lagu kontaroolaa inaynu ilaahay baryadiisa badino oo nebiyullaahi yuusuf ilaahay qur-aanka wuxuu inoogu tilmaamay khatar la geliyey oo gabadh boqortooyada ka tirsan oo qurux badan oo kana iyo weliba dumarkii la waday iyo kooxahaas oo dhamm intay u heshiiyeen in xumo lagu rido in lagu talagalay laakiin wuxuu malaad ka dhigtay ilaahay baryadiisa oo intuu ilaahay baryey ayuu wuxuu leeyahay wailaa tasrif cannii kaydahunna asbu ilayhinna wa akun min aljaahiliin ilaahayna markaasuu leeyahy fastajaaba lahu rabbu fasarafa canhu kaydahunna idan inaynu ilaahay baryadiisa badsanno oo ilaahay subxaana wa tacaala dariiqa saxa inuu inagu hayo oo xumaha dhammaantood inaga dhowro inaynu ku dadaalno waxaa intaa ku xigaa waxa weeyaan baabu saddu daraa'ic bay culammadu yidhaahdaan waddada xumaha ku geynaysa inaad awdo waddo kastoo xaaraan ku geynaysa inaad isku daydo inaad awdo oo haddaad mashaakilka u banbaxday inaad guulaysan doonto lama hubo ya naftaadu iminka markaynu halka fadhino haddii dagaal laynooga warramo nin waliba wuxuu isleeyay dee male waad jihaatami lahayd oo waad laakiin markay naga dul dhacdo inta jihaatami lahayd waxaan u malaynayaa inay badnayd idan wax habboon inaad adigu marka hore isgeynin meelaha imtixaanku ka jira oo adiga iyo ubadkaaga iyo carruurtaada haddaad fitanka u bandhigto cidda guulaysan doonta lama oga saa ogeed maalan shahwatulfarji markii laga warramay waxaa la yidhi ishiina laabta khalwada iska daaya tabarruj ha samaynina waxaasoo dhamme waa min baabi saddi daraa'ic si ilaahay subxaana wa tacaala muraaqabadiisu inagu weynaato yaclamu khaa'inata alacyuni wama tukhfi suduur ilaahay waa og yahay ishu tayxadda baa la yidhi iyo laabtu waxay qarinaysa rabbi waa og yahay subxaana wa tacaala idan ilaahay weynidiisu inay nagu weynaato shahwaatu nafs waxyaabaa lagu xadeeya waxaa ka mid ah cibaadaadkaagu inay bataan oo naftu haddaad khayrka ku mashquulin weydo sharkay kugu mashquulinaysa naftu haddaad firaaqaagu hadduu bato dherigtaadu badato dee balaayadana inaad u banbaxdo waa suurtagal haddiise nafta aad khayrka ku mashquuliso wakhti uma helayso waxa kan
سادرادت با إلهي وحولي واقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر صلاة أوغا با إلهي لي صلاة وحيد كعلنيسا الفحشاء والمنكر حمها يزندا يقولون قدام بيد كعلنيسا إذا قفك كلما وعبادة بتصده والباب لغو أوده شهوات نفسه نوعي دونان بها النقطان وحكم إلى القرآن كوكت المام واستعينوا بالصبر والصلاة قال ما يستبع إلهي للصبر ككو الصبر كوا دي آية الإمامة مركز إنه كور رمي إني بعد العصر كي وحي نصوت المامني إمام مدى السريع الإسلام كي يقومانان هقامين تديميت وحلقوا قارو إني كمت هاي محي لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون ويقين يعقيد قلبي قدكته هي الصبرات كالميسة تبين هذا ويصبرك بكل أنواعه هو عبادة إنك صبرته شهوات نفسك إنك صبرته مقادير تي ابتلاءات كإنك صبرته بكل أنواعه مركز قدرته عمل كاغو إنه نقضه سدو عمل صالح أو نقضه الصبر باكين صدا سأوجد با إلهي وحينيدي واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين صبر يا الصلاة إنه كالما يسنو وراك إلهي وحينات المامية آخر مؤمنين تليبان تكويت قد أفلح المؤمنون تبتنا إلهي وحكسي فيه الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظ يعني وحين كسو ورمي النور دنبا إلهي كسو أروري وحليد وقوة مؤمن كالليباني وقوة صلاة دودو معناها والسمين سي خشوع يا إلهي سبحانه وتعالى كحدا مؤمن كقول استبال ليدي وقوة كان مالها اللغو غيا هذا التراد يو وحا اسكيتي waayo haddaad ka qayb gasho inaad dowrsanaan bay u badantay haddaad meelaha fadhiisato fadhi ku-dirarka haddaad tagto aakhirka adigoo adna dacalka ka wado maad sarki doontaa kolay reerkiinna meesha ku yara maagano aad siraada ka dhicina waad uuneen aakhirka dhinacu baad ka gelaysaa laakiin haddaad iska dayso meesha laqwiga iyo waxaan fiicnayn lagu hayo waad dowrsanaanaysaa zakaadka kan زكاة waxa loo yiri bay leeyihiin ba namaga waxa ka sii muhiimsan tahaarada bay leeyihiin waa qofku naftiisa buu bukhliga iyo wixii kaga tahiraya oo inuu qofku dhiibista barta iyo wax bixinta iyo farjigiisa inuu ilaashado waxa soo dhamay waxa ay tilmaamayaan shahwaatu nafsiga dhowrka quraanku uu soo tilmaamay sidii maxay uu qofku uga xoroobi lahaa idan ayuha alahibba warka kooban wuxuu yahay desireskani waynu u abuurayiin waana taa maanta biologically la tilmaamaya in la tilmaami karo marka nashwada noocaasi ku qabato maskaxdaada qaybta active-ka ee shaqaynaysa gabadh markaad aragto qaybta shaqaynaysa xoola markaad hesho qaybta shaqaynaysa caruurta yaryar ee jacaylkoodu markuu ka galo qaybta ku shaqaynaysa quruxda iyo isdhiska iyo waxa markaad samaysiyo ziinada iyo fardaha iyo waxa qaybta ku shaqayn yani waxa la tilmaamay hormoonadii jirkaaguna inay maskaxda awaamirta bixinayso ay soo daynayso ee maskaxduna inay shaqaynayso that means waa wax kugu abuuran waa mawduuc imtixaan baynu leenahay marka imtixaan ilcamali حكي عقدي مركا لغا يمادو الذين آمنوا وعملوا الصالحات وماشا لغا ربا عمل كصالحين وكالركبهم سيد رادد وحين لنا هاي لأن دي سايرس كانوا وحي أباهين إن لحديو وقد آدو فكرتو هدين تاسينا كو شرعي قوحي ونفرين يلا أما كهورتكها أهادان وتحسين كواد يابها بريكوشنسك aad sii samaynaysa marka hore waxa ka fogeynaya ama ha noqoto cibaadaadka aad badsanayso ama ha noqoto naftaada inaad train garayso ka adkaatido hawadeeda aad control kartid ama ha noqoto xaqiiqada adduunkan aynu joogno aad si fiican u fahamtid waqti yar baad noolaan doontaa maxaad qaba waqtiga yar waqti yar ama madaxweyne noqo ama maal yeelo ama miskiina haw in yar uma joogaysataan waqti badan maaha inta yarna desireskani way kugu abuuranayaan
marna ba dhergina maysid mid intuu buuxsamaad salaada kaasi wuu dhergay ma jirto laakiin waa naftu saad u kontarasho dumar haddaad mid gursado laba gursado saddex gursado haddii lagu odhan lahaa wad iska wadi lahayd baahidu ma istaagto mid baan gursay labaan kuma istaagta xataa laakiin waa lagu kontrooli karaa waa waxaad at least intii aad rabtay ku gudan kartid cunadu waa taa aynu nidhi waa dee waxaabay yidhahdaan caloosha waa iska elastico waa uun tatawasac way sii ballaadhan kartaa adiga arkay dad la leeyahay gurigaa lagu jabiyo waxaa lagu soo saaray bini aadam oo lagu wado loo dalbado bahalladan wax qaada waa qof bini aadama yaa haa waxaa loo dalbaday maxaa la yidhaha kriim dhan oo kuwan gawaadhida qaada ah inuu qofkan qaado waana cunno waxa sidaa u galay wax kale maaha gacantaa iyo bahalkaa afkaasi isugu waday ayuunbuu sida tan noqday wax xanuun kale ku dhacayna ma jiro waa uun si wuxuu cunayo sawaakaada waa kaa bini aadamku intuu xadda dhaafay marna ordaya marna ku guraya caloosha idan soo duuduub waxaan oo dhammi waxaan leenahay waxaynu u baahannahay inaynu dib u eegno sidii sharcigu sheegayna wixii sharciga aynu ku fulin karna inaynu ku fulin oo dhallinyarada loo guuriyo ciddii loo guurin karo la baro sidii ay guri u yeelan lahaayeen meelaha imtixaanaadka iyo shahwaadkani ka jiraan laga kontaroolo adigu naftaada aad kontarooshid maalkan iyo waxaan inaanu ahayn waxaa loo nooliyey inaynu wada fahmno waxaynu ka rabnaa inay noqoto uun intii aynu ku noolaan kari lahayn ama nolosha aynu ku fudaydsan kari lahayn markaan soo duuduubo saan hore u soo tilmaamay qur'aanku أي مشكلة إن هيست الدوي مشكلة نفسانية هالنقطة أما مد بلشيد هالنقطة أما مد عقيدات هالنقطة وننزل من القرآن ما هو شفاء نولش وحي وباهنا يدورن قرآن كاسبا إيه الدوين لكن وحي نوباهنا قرآن كاين نسفي عنه فهمنا ومشاكل كمان الدنيا دا كتشرو أوردن إنها كما بدنا inaha kan kama badna inana waxaynu nimi meel intan bal la isku itixaamo muqriyaadkeedii yaaliin hadday tahay shahwatul jins derbigaad ka soo wareegtaba waxaa kuugu yeedhaya iyo bahalkan yaraad jeebka ku sidatay iyo waxoo dhammi waa wax nafta bini aadamkaa kicinayay u badan yihiin waxay ishaadu aragtaa saasay u badan yihiin hadday noqoto shahwatul maal dadkan iyo kalaasiskay u samaysayn iyo dabaqaadkan iyo waxaan oo dhammi dee uu dadku wuxuu struggle ugu jiraa siduu dabaqadan uu ku jiro uga bixi lahaa dabaqada ka guriga ballaadhan laga yaabaa guri yar inaad ku jirto struggle-kaa koowaad waa guri ka weyn si aad u degi lahayd hadhowna waa guryaha noocaasa si aad u degi lahayd gaadhaada wata hadhowna waa helicopter saad u wadan lahayd adigoo bahanna waad dhimanaysaa uun haddii aan dhergin ayuu marad ka tegi doontaa idan waxaan leenahay war waxa kan lagama dherge aan baranna sida loo kontaroolo oo lagu kontaroolana wixii sharcigu sheegay ilaahay kitaabkiisa iyo sunnada nabigu ay inoo tilmaamtay intaasaan ku soo koobaya sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin